waa maxay awoodda dhabta ah ee qaran? Ma tirada ciidanka, ma dhaqaalaha, mase waa sirta aan cadowgu gaari karin? 1974 dhulka Aasiya waxaa gilgilay qarax. Waa Hindiya oo tijaabisay bam nuclear ah. Cid walba waa ay aamustay, laakiin Pakistan ma aysan aamusin. Zulfikar Ali Bhutto oo ahaa xilligaas madaxweynihii Pakistan waxa uu yiri wax walba waan huri doonaa si aan ku helno bam nuclear ah, hataa haddii aan runti la'aan noqonayno. Dagaal hadal ah ayuu bilaabay, balse waxa uu dhisay ma ahayn hadal ee waxay ahayd awood. Haddaba soo dhawaada saaxiibayaal, kuna soo dhawaada muuqaalkiina maanta oo aynu uga hadli doono taariikhda barnaamijka nuclear-ka ee Pakistan min bilow ilaa iyo dhammaad ayaan kula wadaagi doonaa iyo marxaladihii oo soo maray si ay u samaysato barnaamij nuclear ah Pakistan. Haddaba haddii ay tahay markaad kugu horreey, fadlan inagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran si aysan ku dhaafin barnaamijyada aan halkan ku soo baahin. Sanadii 1956 dowladda Pakistan waxa ay dhistay Pakistan Atomic Energy si loo hormariyo barnaamijka tamarta atomka. Ujeedadu waxay ahayd isticmaal cilmiyeed iyo koronto, mana ayna jirin ramitaan ciidan. Waxaana la hirgeliyay reactor nuclear cilmi baaris ah oo laga keenay Canada. Pakistan waxay xubin ka ahayd Atomic for Peace, mashruuca Mareykanku uu ku faafinayay isticmaalka nabadeed ee tamarta nuclear-ka. Kacdoonkii India 1974 18 May 1974 India waxa ay tijaabisay qaraxeedii ugu horeeyay ee nuclear ah, kuna magacaabay Smalin Behuda. Pakistan waxa ay u aragtay arrinkan inay tahay hanjabaad weyn oo dhanka ammaanka ah. Madaxweynihii xilligaas ee Pakistan waa madaxweyne Zulfikar Ali Bhutto. Waxa uu yiri haddii India ay samaysatay bam nuclear ah, anaguna waan samaysanaynaa, xitaa haddii aan waayeyno jabrooti ah. Halkan waxa ay ka bilowday qorshaha sirta ah ee Pakistan ku doonaysay hub nuclear ah. Markana waxa la soo gaaray sanadii 1975 Dr. Abdulqadir Khan, saynisyahan Pakistani ah oo ka shaqeey jiray Netherlands, waxa uu la yimid naqshad sir ah oo lagu kobcin karo uranium-ka, taas oo laga soo xaday xarunta Urenso. Waxa uu aasaasay Kahooto Research, xarun ay ka socoto hawsha ugu muhiimsan ee ah hubka nuclear-ka. 1990 Mareykanku waxa uu joojiyay gargaar military isagoo ku eedeeyay Pakistan inay horumarinayso hubka nuclear-ka. Markii la soo gaaray 11 May 1998 Hindiya waxay mar kale tijaabisay 5 bam nuclear ah, laakiin markan Pakistan kama walwalsana waxa dhici doona, sababtoo ah waxay isku ogtahay awood taas oo ay in muddo ah soo dhisaysay. Iyaduna waxa soo dhow xilligeedii markii la gaaray 28 May sanadii 1998 Pakistan waxay qaaday tallaabadii la wada sugayay muddo dheer. 5 qarax nuclear ah oo laga sameeyay buuraha gobolka Balochistan. Tijaabadaas waxaa lagu magac daray Yom Takbir, maalintii awoodda. Pakistan waxa ay noqotay wadankii 7aad ee dunida leh hubka nuclear-ka ah, wadankii ugu horeeyay ee muslim ah ee haysta bam nuclear. Halkaas markii ay marayso, Pakistan ay noqotay awood nuclear ah sidii la wada sugayay. Mareykanka iyo Midowga Yurub waxa ay Pakistan saareen cunaqabatayn dhaqaale oo baaxad leh, laakiin taageerada gudaha ah ee shacabka Pakistan aad ayay u kordhay. Dr. Abdulqadir Khan waxa uu noqday halyeey qaran oo ay aaminsan yihiin dhammaan shacabka Pakistaniyiinta. Xilligan la joogana, Pakistan waxa ay leedahay in ka badan 150 ilaa 170 bam nuclear ah, gantaalo kala duwan, qorshayaal ay ku dagaalami karto, mid ciidan badeed ah, mid dhulka ah iyo mid cirka ahba. Waxa ayna martay siyaasad ah waxaan haysanaa bam si aan isugu difaacno, lamana hor joogsan karo. Markana aynu isla eegno saamaynta caalamka iyo gobolka ay ku leedahay Pakistan. Barnaamijka nuclear-ka Pakistan waxa uu si toos ah u saameeyay tartanka hubka ee India iyo Pakistan. Xasiloonida gobolka South Asia, aragtida wadamada muslimka ah oo qaarkood u arka Pakistan inay tahay Muslim nuclear power, diblomaasiyadda caalamiga ah ee la xiriirta faafinta hubka. Guntii iyo gunaanadkii barnaamijka nuclear-ka Pakistan waxa uu maray waddo dheer, riyo nabadeed, cabsi dagaal, horumar sir ah, tijaabooyin xoogan iyo ugu dambeystii oo ah awood la qarsan yahay. Waxa ay muujisay si wadan u heli karo hub nuclear ah isagoo wajahaya cadaadis siyaasadeed, dhaqaale daciif ah, balse leh go'aan adag iyo taageero gudaha. Haddaba saaxiibayaal, halkaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa muuqaalkeena maanta. Haddii aad nala soo gaarto ilaa ay dhamaadkana, fadlan nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xidhan.
asalaamu calaykum waraxmatullah.